الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سود هذا والله إلهني بركيه مالك سعد يدك جوكتا إن شاء الله وولالك ليبان علي إيه channelك إيه شيخ ليبان علي وسود هذا والله ليه والله لا عصبة سود هذا المركز كو هرن وسلامين كو دنبنا وان سلامي إن شاء الله سوق الأد بقول ما سنتين سأقول حرنتين channelك مركز هاي المؤمنين ولا ليال إن المركز channelka subscribe saartaan muuqaalkana like saartaan soo dad badan walaalo u gaaro inay uga faa'iideystaan anikina ajir uga heshaan insha Allah caawo waxaan rabaa inaan ila wadaago walaalayaal qofka inuu sixran yahay muxuu ku ogaa karaa yani calaamadaha sixirka walaalayaal waa laba qayb qofna maalintii calaamadu arkaya jirto qofna habeenka calaamadu arkaya jiro sida ka soo qaad qofka maalintii calaamadu dareemayo jiro oo lagu garto inuu qofkan sixran yahay sidaasoo kale waa maalintii markaa soo jeedid sidaasoo kale markaa hurididna calaamado aad ku garan kartid inaad sixrantaa ayaa jirto marka ma laga yaabaa qofka hadduu sixir qabo riyada inuu ku ogaa karo mase qofka hadduu sixran yahay suu ku ogaa karaa ku ogaa karaa inuu sixran yahay ama calaamado noocee ah ayaa lagu gartaa qofka sixran waxaan rabaa inaan nila wadaago walaala khaasatan qofka hadduu seexdo riyo uu arko riyadaas oo tuseyso inuu qofkan sixran yahay waa shan qayb ama shan calaamadood qofkii ku riyoodo ama qofkaas waxaa laga yaabaa inuu sixran yahay shan calaamadood haddaa riyo ku aragtid ama shan qaybood haddaa isku aragtid waxay tahay shantaas qayb inaad sixran tahay ama waxyaalaha ku garan kartid inaad sixran tahay sixran tahay oo sixir aad qabtid marxaba calaamadahaas aan rabaa walaalayaal inaan nila wadaago waxayna caawinaysaa inuu qofka dhaqso uu u dareemo inuu dhiban yahay inuu sixran yahay calaamado waxaa jirta oo la garto qofka haddii maalintii tahay oo kale uu isku arko iyo calaamado badanaa jiro oo qofka lagu garan karo inuu sixran yahay sida markii la cilaajinayo kale calaamado qofka la weydiiyaa jiro oo laga garto inuu qofkaas sixran waa markuu soo jeedo qofka laakiin markuu jiifto waxaa jira ayagana calaamado gooniya oo qofka uu riyo ku arkayo qofka sixran riyada calaamado uu ku arkayaa jirto oo calaamadahaas haddii loo fasiro uu ogaa karo inuu qofkan uu sixran yahay haddii kalena ma ogaa karo waxaa laga yaabaa inuu intaas sano uu dhib qabo intaas sano inuu sixran yahay intaas sano inuu riyooyin noocyo badan arkayo laakiin ma fahmaayo inuu sixran yahay wuxuu isku haystaa inuu dhib meel kale ka hayo laakiin calaamadahaas uu arkaayo haddii ay ka mid noqdaan calaamadaha caawan la wadaagayo qof kasta oo isku arko shantan calaamadood aan la wadaagayo in uu qabo habeenkii uu ku riyoodo uu riyo ku arka habeenkaas markuu sixdo noocyadaas oo kale ha ogaado qofkaas inuu sixran yahay qofkaas waa qof sixran sida ugu dhaqsiyaha badan ha sameeyo siduu isku cilaaji lahay insha Allah ilaa idankiis sidoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam u sheegay xadiis waxaa jiri oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yiri qofka haddii sun ka soo baxayso ama sun cunaayo waxay tusaysaa qofkaas inuu sixran yahay haddaad isku aragtid adoo sun cunaayo ama adoo sun kaa soo baxayso waa sixran tahay taas waxay ku tusaysaa inaad sixran tahay sidaa darteed calaamada koowaad ama qaybta koowaad ayaan galaynaa insha Allah qofkii ku riyoodo walaalayaal qofkii ku riyoodo ama riyo ku arko asaga masas riyo ku arko ama abeesooyin riyo ku arko ama dawacada inaad taqaanaan oo maleena ama dawacooyin ama dawaca riyo ku arko garba leh baala leh masas baala leh haddaa aragtid abeesooyin baala leh haddaa aragtid ama dawaco biibayso oo baal leh haddaa riyada kugu dhibaan ama aad ku aragtid ogow inaad sixran tahay mubaasharata wax kala fiirin qaabka isku daweylay raadi marka waa sixran tahay sixir baa ku haya marba masas baala leh ama abeesooyin baala leh ama dawacooyin baala leh ama dawaco baala leh haddaa ku riyootidba waxaa ogaataa inaad sixran tahay waa midda koowaad midda labaad riyada labaad ama yacni calaamada labaad oo lagu garan karo qofka inuu sixran yahay waxaa ka mid ah walaalayaal inaad maqashid dhawaaqa eeyaha adoo hurdada dhexdeeda inaad dhawaaq ay ku maqasho ay ciyaay ama
sidaasoo kale qaanziiro ama doofaaro qaylinayo doofaarka cidiisa ama qaylidiisa inaad maqashid sidaasoo kale daanyeer qaylina ama crow maa laha daanyeero qaylina ciidooda inaad maqashid iyo mukulaalo qaylinayo qaylada mukulaasha nyaanyuurta ama mukulaasha qayladooda hadda adoo hurudariyo ku aragtid waa sixran tahay waa eeyaha kow waxa waaye doofaarada labo waa daanyeerada saddex waa mukulaalaha ama nyaanyuurta afartaas shay haddaa qayladooda maqasho bes laakiin aragtidooda maho ayagii inaa arkayso maho laakiin waa qaylo bes qaylo adoo hurdo ayaa wax maqtay ey ciyaayo waxaad aragtay doofaar ciyaayo waxaad aragtay daanyeer ciyaayo waxaad aragtay mukulaal ciyayso nyaaw agtaada ka man arkayso mukulaas markaas waa sixrantahay mubaashirata meel kala firfirin waa sixrantahay saa isku daaweyn leh samee insha allah ilaah idinkiisa sidaasoo kale walaalayaal qaybta saddexaadna waxaa waaye ama calaamadaha saddexaad oo lagu garanayo inaad sixranta waxaa ka mid ah inaad booqatid qabriyada khaasatan habeenkii adoo riyo waxaad ku arkaysaa adoo habeen ay tahay mugdi ah qabuuro dul wareegayo oo qabuuro booqanayo ama meelaha lagu qoob ciyaarka ama qoob ciyaarka waxaa la dhaho meelaha lagu ciyaaro oo daansiga adoo habeenka wareegayo ku riyoonaysaa ama waxaa ku riyoonaysaa meelaha lagu heeso adoo wareegayo wareegayo meelaha lagu heeso ama musqulaha mugdiga musqulo mugdi adoo wareegayo haddaa isku aragtid waa sixranta qabriyadoo habeenka lagu dul wareego meelaha qoobka ciyaarka iyo daansiga lagu dul wareego meelaha heesaha lagu dul wareego iyo musqulaha mugdiga oo la booqdo lagu dul wareego waxay ka mid tahay inaad sixranta adoo meelo qabriyo taagan meelo lagu heesaayo meelo lagu ciyaarayo musqulo mugdi dhexdooda adoo taaganba haddaa ku dhex riyo riyada dhexdeed ku aragtidba waa sixran tahay shaki kale isku gal wax kalena ha raadinba intaasba haddaa aragtid waa sixran tahay iyo waxaa samaysaa saa isku daaweyleed dadaal samee oo caafimaadkaada ka fikir weeyaan midda afraad sidoo kale midda afraad waxay ku tusaysaa walaaliya qaybta afraad ama calaamada afraad waxay ku tusaysaa qofka hadduu dhiig baxayo adoo dhiig baxay sidoo kale dhiig kaa qulqulayo dhiiggaasoo meel ka imaana mataqaan laakiin dhiig socda aragta baxaya dhiig jasadkaaga ama jirkaaga dhiig kasoo qulqulaya aragtay haddaa intaas isku aragta waxaa ogaata inaad sixran tahay dhiig qulqulaya aragtay dhiig socda aragtay oo hoostaada dhan meelaha ku daasa dhiig badan kaa baxaya laakiin meeshuu ka baxay ma arkaysa dhiig baa kaa qulqulaya waa dhiig buxusa dhiig baxa kugu jiro ma arkaysa meesha dhiig ka socda ama jirkaaga meel kamid a ayaa dhiig ka baxaysa oo dhiig ka imaanaya labadaas calaamadoodba haddaa isku aragta waxay ka mid tahay calaamada afaraad oo lagu ogaado inaad markaas adi sixran tahay dhiig baa hadda arag waa calaamad sixir dhiig badan oo dhiig bax ah ama dhiig jasadkaaga ka socda haddaa aadto jirkaaga ka baxayo waxaad ogaataa inaadna sixran tahay waa calaamada afraad walaaliyaa calaamada shanaadna waxaa waaye inaad isku aragtid yani waxay kutusaysaa calaamada shanaad waxaa weeye haddaad riyo ku aragtid ul haddaad riyo ku aragtid ama biyo kulul oo dhulka lagu shubayo haddaad riyo ku aragtid ulal ama tiir ama ul haddaad riyo ku aragtid ama biyo kulul oo karkarayo oo dhulka lagu shubayo haddaad riyo ku aragtid waxaad ogaataa inaad sixranta ulahba haddaad riyo ku aragtid ulba ama biyo kulul oo lagu shubayo dhulka haddaa aragtidba halkaas adigana waxaa aragtaa riyo haddaa ku aragtid habeenkii waa sixran tahay saa darteed marka walaalayaa shantaas qeybood waxay ku tusaysaa qofki isku arko inuu sixran yahay hal mar ayaa dul maraya midda koowaad waxaa weeyaan qofka arko masaska iyo abeesooyinka iyo dawacooyinka oo garbale oo biibayo qofka riyo ku arko waa sixran yahay sidaasoo kale qofkii maqlo qaylada ama ciga eeyaha iyo doofaarada iyo sidaasoo kale daanyeerada iyo mukulaalaha qofka qayladooda bes uu maqlo oona arkayn laakiin qayladooda keliya u maqlayo qofkaasna wuu sixran yahay ha ogaado sidaasoo kale qofka habeennimada mugdiga booqdo qabriyada iyo meelaha qoobka ciyaarkoo lagu ciyaaro daansiga ama meelaha lagu hayso ama musqulaha mugdiga habeenkii booqdo ku dul wareego qofkaasna waa sixran yahay ha ogaado sidaasoo kale qofkii oo maaragtay kasoo qulqulaya dhiig ama dhiig baxaya ama jirkiisa meel kamid a dhiig ka imaanaya qofka riyo ku arko dhiigba riyo ku arko ha ogaado qofkaas asagana wuu sixran yahay sidaasoo kale qofkii arko ulo
ama ul arko ama sidaasoo kale arko biyo kululoo dhulka lagu shubaayo qofkaas asagana waa sixran yaha ogaado. shantaas qaybood walaalayaal waxaa lagu gartaa inaad sixran tahay. dad badan oo maanta waxaa jira xanuunsan oo sixir dhib hayo oo habeen kasta wax ku riyoonaya laakiin aana dareensaneyn meesha laga hayo. riyadana waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu garto qofka dhibkiisa. marka insha allah dad badan inay ka faa'iidaystaan laga yaabo gaarsiin walaalahaas ay uga wada faa'iidaystaan. ilaahani barakay meel kasta joogta adduunyada insha allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.